السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع العيال وين سلامي دمان أخيارتا كحرا كنال كان سيدي عادة نواهد وهالكان أغبرتين إن شاء الله تعالى مانتنا وحدين وضع مقال كلا أو آد وحيسا بدن أو كسابسا عادة دبوريغا شادا انت بدن مقالة هالكان أنكسو قد بيو ماهن كو وقت بدن قاتا أو دقيقة بدن كاعونا هيا waxaan isku dayaa hadduu alla idmo inaanu daqiiqada yar aan wax kala faa'iideysan insha Allah ta'ala muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay caadada dib u dhigashada waxaan eegi doonaa waa maxay dib u dhigasho waxaan kaloo eegi doonaa waa maxay farqiga u dhaxeeya dib u dhigashada iyo caajiska waxaan kaloo eegi doonaa maxaa sababa dib u dhigashada oo waxaan soo qaadan doonaa ilaa dhowr sababood oo keena dib u dhigashada ku soo dhawaada YouTube maal ciyaal bartabaraaruujinta bulshada aad baa u mahadsantahay akhyaaray mar kale haddii aad muuqaalka laag saartiin aad bay u sii fiicnaan lahayd fadlan haddaan nagu cusub tahayna subscribe dheh halkan waxaad ka heli doontaa insha Allah ta'ala waxyaabo mustaqbalkaaga hore ku dhaqaajiya kama heli doontid halkan waxyaabo iska dheeldheela iska qosol ah oo dib ku dhiga waxaad halkan kala socon doontaa wax insha Allah ta'ala adduuniya aakhiro aniga iyo adigaba hore noo wada dhaqaa aan ugu horeyntii ku bilaabo waa maxay dib u dhigasho caadadan aadka u foosho xun ee dib u dhigashadu waa mid kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor joogsanaya inaad wax qabsato go'aano sax qaadato iyo inaad ku noolaato nolosha aad mar kasta ku riyood si kooban haddaan u iraahdo caadadan la yiraahdo dib u dhigashadu waa saaxiibka dhigashada adowgaaga waa maxay farqiga u dhaxeeya caajisnimada iyo dib u dhigashada caajisnimadu waa in qofku awoodii loo baahnaa uusan gelin shaqada ama hawshaas laga rabay in qofku awoodii loo baahnaa uusan gelin tusaale waxaan naqaanaa inaanu dadka ku niraano saaxiib maalmahan shaqadaadu waa caajis micnaheedu maxaa waaye qofku shaqadii kama gambin oo shaqadii dhammayd iskama uusan dib dhigin laakiin juhdigii iyo hawshii laga rabay inuu shaqadan geliyo muusan gelin waxaan naqaanaa inaan ardada badana macallimiintu ay ku yiraahdaan inkastoo aysan laga fiican yahay oo wax aad iyo aad u liita ay tahay waxa tahay caajislow arday caajislow aata micnaheedu maxaa waa arday waxbarashada nacay ma ardaygan arday iskuulka u gambinaya shaqadii loo baahnaa inuu akhriski iyo wixii iskuulka looga baahnaa ayuu si sax u qabanay marka caajisnimadu waa in qofku awoodii looga baahnaa uusan gelin hawshaas ama shaqadaas halka dib u dhigashaduna ay tahay in aadan qaban hawl la rabay inaad qabatid hawl waqti cayiman oo waqti qorsheysan lahayd oo la rabay in waqti qorsheysan lahayd oo la rabay inaad qabtid inaad qaban waayahay maxaa sababa oo igu keenahaya oo anaga dhan nagu keenahaya inaanu wax dib dhigano oo guul dareysano maxaa keenaya si aan uga fogaano asbaabaha keena in qofku uu hawlihiisa dib dhigto aad ayuu u fara badan yihiin waxaan ka soo qaadan doonaa ilaa 5 kamid ah midda koowaad ka cabsashada guuldarrada qofku inuu ka cabsado hawshan uu rabo inuu qabto inuu ku guuldareysanayo waxa la yiraahdaa inta guuldarradu ka cabsashada guuldarradu intay baabi'iso guuldarradu ma baabi'iso arday badan oo imtixaanaadka ku baasi lahaa oo aan guuldareysan lahayn ayaa waxa sabab u noqota inay guuldareystaan qida guuldarrada marka waa inaanu joojinaa ka cabsashada guuldarrada go'aan qaataa inuu hawshan uu qabto ilaahay tala saartaa ka cabsashadana oo meel iska dhig asbaabta labaad ee keeni karta in qofku hawlihiisa dib dhigto waxa kamid ah baaxadda hawsha aad qabanaysid oo aad u ballaaran tusaale ahaan haddaad tiraahdid waxaan rabaa inaan quraanka xifdiyo waa hawl aad iyo aad u ballaaran waa shaqo adag waa laakiin markaad tirahdid waa inaan quraanka ku xifdiyaa 5 sano 2 sano 3 sano waqti u cayintid oo waqtigaas dana sii kala jabiso tiraadid sanadka waa intaas xifdiyaa bish waa intaas xifdiyaa isbuuci waa intaas xifdiyaa waxa laga yaabaa in maalinta ku soo aado dhowr iyo 10 sano marka ha fiirinin baaxadda hawsha ay leedahay hawsha kala jajabi inta qaybad u qaybsami karto u qaybsami laakiin haddaad eegtid ayadoo oo isku dhagan hawsha oo baaxadeeda kor ka eegtid ogow waxa kugu soo socda waa dib u dhigasho asbaabta saddexaad ee keeni karta dib u dhigashada waxa kamid ah qabashada hawl aan ku farxad gelinin qof aad aragtid guul barnaamij ka gaaray inaad barnaamijkii adigoo barnaamijku farxad gelinaya uusan ahayn inaad tiraahdo anna barnaamijkaasa mashruuc fiican laga helayo anna waan qabanaya
mana aha wax farxad ku dareemi aad aqoon fiican u leedahay qabashada hawl aan ku farxad gelinaynin waxyaabaha waxay kamid tahay sababaya asabta sabab waxay noqonaysaa daal qofku inuu aad u daalo inuu ka taxadari waayo nafsadiisa inuu maanta oo dhan shaqeeyo laga yaabo inuu hameenkiina waqti dambe uu ku gaaro baraha bulshada waxay noqonaysaa qofku inuu daalo oo shaqooyinka haddii xataa shaqooyinka qofku uusan si jadwal u qaban maskaxdiisa waxay noqonaysaa qof daalan hadduu daal yimaadana waxaa imaan doona dib u dhigasho asbaabta shanaad ugu dambaysa kusoo gabagabeynaya muuqaalkan waxay noqonaysaa howlahaaga oo aan kuu qorshaysnayn howlaha kuu qorshaysan asbaabta shanaad ugu dambaysa waxay noqonaysaa howlaha kuu qorshaysan oo aan kuu kala muhiimsanayn maxaan kala jeedaa waxaad rabtaa maanta inaad qabatid 10 shay 10kaasi shay kuma kala qorna sida ay u kala muhiimsan yihiin sida ay muhiimadda kuu kala leeyihiin yaa marka hore qabanaysa yaa ku xiga marka waxaa imaanaysaa marka 10 shaqo rabtid inaad qabatid inaad su'aal isweydiisid ka bilowda makana ka bilowda marka su'aashaas dhowr jeer maskaxdaada ku celcelisidna waxaa imaan doona inaad tiraahdo xogaa u nasoo bal xogaa yar aad u kaadis aad ba ugu mahadsantihiin sida muuqaalada halkan aan soo geliyo aad commentiga uga dhiibatiin sharafta leh u share gareysiin u la gareysiin aad ba u mahadsantihiin walaalaha cusubna waxaan leeyahay nagu soo biira kanaalka insha Allah taala waa kanaalkeeni shaani ma ahan meel aan ku magadaadano oo waqtigeena aan ku dayacno waa meel insha Allah taala aan mustaqbalkeena adduun iyo aakhiro aan ku kala faa'iideysan doono aad baan ku wixii doonaa ila muuqaalka xiga والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.